Salaamu calaykum. Dal ku yaala Yurub oo taariikhdiisa si qarsoodi ah loo rogay si uu u noqdo waxa aanu ahayn. Waxaa laga abuuray qiso qarsoon si loo xakameeyo maskaxda jiilka cusub. Ma ahan sheeko oo keliya, waa waaqi aad ka argagaxdo. Waa waqtigii aan iftiimin lahayn runta laga qariyay Poland. Ku soo dhawow mowduuc ku saabsan taariikhda Poland. Waa anigoo ah Maajid. Halka aad nagala socotaan waa fahamka. Aan horay u galno mowduuceena si aan wax badan uga ogaano taariikhda Poland. Poland waxaa lagu tilmaamaa waddanka 3 jeer laga tiray qarnigii 18aad. 3 deris oo kala ah Russia, Australia iyo Prussia waxay kala qaybiyeen Poland ilaa uu gebi ahaanba khariidada ka baxay. Dadkii reer Poland way qaxeen, qaarna waa la laayay. Taariikhdaasi weli si buuxda looma baro. 1795 Poland si buuxda ayuu ugu bahayaa khariidada. Waxaa lagu hoos qariyay gumeysi. Dhaqankiina waa la aasay. Qofna ma weydiiyo sababta oo dal Yurub ku yaala ugu baaba'ay isagoo aan la dagaalamin. Markii uu dagaalkii labaad ee dunida dhammaaday, Poland dib ayaa looga dhisay nidaam cusub. Laakiin run ma ahayd. Waxaa la soo bandhigay nidaam lagu faano, taariikh cusub oo laga bilaabay hog. Laakiin waxaan ilownay su'aasha ugu weyn: maxaa dhacay intii aan maqnayn? Waxaa laga rabay manhajka, dugsiyada, dhacdooyinkii gudaha laga sameeyay. Ma jiro wax badan oo laga ogyahay Poland, ka mucaaradka lagu gumaaday, ama dadkii lagu khasbay inay qiraan wax aanay aaminsanayn. Jiilka cusub ayaa lagu barbaariyay taariikh aan dhammaystirnayn. Buugaagta waxbarashadu waxay xuseen halyeeyo, balse waxay ka aamuseen geesiyaashii dhabta ahaa. Maskaxda carruurta waxaa laga dhisay taariikh la safeeyay si ay u rumaystaan waxa dowladda rabto inay rumaystaan. Ma ogtahay in qoysas badan oo reer Poland ah aysan weli ogeyn waxa ku dhacay awoowayaashooda? Taariikhdu waxa ay noqotay hub siyaasadeed. Poland maanta waa waddan horumaray, balse dhalinyarada waxaa la gudboon inay dib u eegaan waxa laga qariyay qarnigii tagay. Baraha bulshada iyo cilmi baadhis madax bannaan ayaa keentay iftiin cusub. Waxaa jira YouTubers, cilmi baarayaal iyo qorayaal cusub oo furay boggii la xidhay, kuwaas oo sheegaya dhacdooyinkii laga qariyay dadweynaha. Waxa ay isweydiinayaan, taariikhdan aqaano ma tahay midda saxda ah? Ma jiro dal ka madax bannaan khaladaadkii hore, laakiin waxaa muhiim ah inaan si geesinimo leh u eegno taariikhda, xanuunkeeda iyo xaqiiqada. Poland ma ahan oo keliya sheeko, waa tusaale oo ah sida taariikhda loo rogi karo haddii aanan su'aal iska weydiinin.